xeer ilaalinta waddanka Norway ayaa dalbanayso in 14 sano oo xabsi ah lagu xukumo wiil 17 jir ah oo lagu soo eedeeyay in uu ka dambeeyay gacanna ku lahaa falal dil ah oo ka dhacay wadamada Norway, Sweden iyo Ingiriiska. 17 jirkan ayay xeer ilaalinta Norway dalbanaysaa in lagu xukumo 14 sano oo xabsi ah ama ugu yaraan 9 sano oo xabsi ah. Xeer ilaaliyaha gobolka Geir Evanger ayaa sheegay in ay codsanayaan in wiilkan 17 jirka ah ee falalkan kala duwan ee dilka ee ka dhacay wadamada Norway, Sweden iyo Ingiriiskuba lagu xukumo 14 sano oo xabsi ah ama ugu yaraan 9 sano oo xabsi ah. Waxaa lagu soo eedeeyay wiilkan 17 jirka ah inuu qayb ka ahaa ama wax ka fuliyay 2 dil oo ka dhacay waddanka Sweden, kuwa oo ka dhacay magaalada Lunda 28 bishii Janaayo iyo sidoo kale February 24 dil kale oo ka dhacay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Wiilkan ayaa la sheegay xilliga falalkan dilka ah ay dhacayeen uu jiray da'da 15 sano, ha yeeshee waxaa lagu soo waramayaa iminka inuu jiro oo uu yahay 17 jir lagu soo eedeeyay gacan ku dhiiglanimo iyo dilal kala duwan oo laga fuliyay wadamadan saddexda ah. Waxaa sidoo kale wiilkan lagu soo oogay dacwad ah in uu ku lug lahaa faldambiyeed ka dhacay magaalada Stavanger ee dalka Norway. Wiilkan ayaa iska beeniyay oo diiday in uu ku lug lahaa faldambiyeedyada qaar, halka kuwa qaarna uu qirtay sida 2 dil ee ka dhacay waddanka Sweden ee bilihii Janaayo iyo Febraayo. Ha yeeshee waxa uu iska inkiray oo uu diiday in uu ku lug lahaa dilal kale oo ka dhacay wadamada Norway, Sweden iyo Ingiriiska, kuwa oo uu sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn. Ha yeeshee xeer ilaalinta hay-adaha booliska iyo amniga ayaa ku soo oogay dacwadahan kala duwan iyo dilalkan foosha xun ee uu ka geystay kuna lugta lahaa wadamadan saddexda ah. Waxaase dad badan fajicisa iyo layaab ku noqotay ama ku ahba in wiil 14 jir ilaa 15 jir ah uu ku lug yeesho kana mas-uul noqdo dilal kala duwan oo ka dhacay 3 waddan oo qaaradda Yurub ah isaga oo jira da'da aadka u yar. Waxaana arrintan ay ka dhigan tahay in ay sii kordhayaan dilalka loo adeegsanaya caruurta da'da yar ee ka hooseeya 18 sano oo sharciyada Yurub iyo Scandinavian-kaba ay dhigayaan in aanan la marsin xukunno adag. Ha yeeshee arrintan ayaa waxa ay ka dhigan tahay in 14 sano oo xabsi ah lagu xukumo wiilkan da'da yar in ay soo jeesteen xeer ilaalinta hay-adaha amniga iyo garsoorka wadamada Yurub iyo Scandinavia. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.